الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله دمان مرت شرفته كسو قيب كشي حفلة قارقة ومقريان وسارة دنيارة وهجامينيان وسيرك وسيركينك وسيرك عدالة قدوميها حسبك كلمية وسير هوري محمد كاهين ومانتا عي قيمة سمينا سو حفلة تاني ودريم إيا وحي مالنتي سيدي خوغايين إيو سيدي مانتا ويحيهين أورك أوفو وعنو سلام يوم قدوميها محمد بارود وسير هوري هوريتي سمسم دمانتين بعض الصحافة دلينيرada iskuulada martisharafta kala dhammaanteedba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa maalin qaaliya ummad kastoo adduunkiihi waxay ku faanta waxa ka mida taariikhaha ay soo barto iskama samaysanto taariikhtu si aan ognahay waa loo dhintaa waa loo halgamaa waa loo dadaalaa dad badan baa u dhintaa ufo anu waan garanayaa maalintii ay bilaabneen xirfaduhu ee xadhiggay galeenna waan garanayaa intii dhimatay allaha u naxariisto waa inaynu xusnaanaa inta maanta odayada ana waxaan leeyahay jasaakumullah khayr halkaa ka sii wada intaan nool lahay naftu inagu jirtana waa inaynu wadnaa halganka Somaliland intaan ka mid ahay waa garananaa waxyaalihii iyo taariikhdii la soo maray waa garananaa weli kow inagama joogto waa waddan curdina waan dadaalaynaa laakiin weli calankeennu ma sudhnaa meelaha adduunka la isugu yimaado waa wada ognahay dadaal badan baa laynaga rabaa dhallinyarada inta halkan joogta iyo inta waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa joogtaba ummad kasta waxay leedahay jawharad iyo waxay ku faanto iyo xoog iyo cudud bay leedahay cududdaasi waa dhallinyarada inta waaweynaatay way iska waaweynaatay way daaleen laakiin cidda laga rabo waddanka inay wax qabato waxa weeyaan dhallinyarada meel kastay joogaanba Somaliland in badan oo halka hadashay carabkay ku dhufatay qofka bini aadmiguna hadduu qiri waayo dhibta haysata kama baxo horta waa inaynu garanaa dhibta ina haysatay ugu weyn dhibta ugu weyn ee Somaliland maanta haysata waa qabyaalad waana la wada sheegay haddaynaan la dagaalaminna wallaahi oo billaahi oo tollahi inayna meel gaadhayn dhallinyaroyna meel gaadhi maysaan odayna meel gaadhsiin maayo hooyana meel gaadhsiin mayso qabyaaladi waa cudur ka xun adduunyada ma jiro nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam yidhi waa qurunka durka asxaabtii ku yidhi midda kale waxbaa Somaliland maanta ku soo badanaya dhibaatooyin ka mid ah dhallinyarooy meel kastoo joogtaanna ha lala dagaalamo waa maandooriye waa layna dilayaa aan la dagaalana maandooriyaha waxba yaynaan dayarsanine aan la dagaalana maandooriyaha dhallinyarada wiil iyo gabadhba marka dhallinyarada maandooriyuhu soo galo qofka maskaxdiisu way baaba'daa taana ku talagala xukuumad ahaan waxaa naga go'an maanta dhallinyarada in la xoojiyo midnimadooda cadaaladda loogu dadaalo dadka ganacsatada Somaliland meel kasta joogaan haddaan dhaqaalaha la korin dalka oo aan dhallinyarada shaqo loo abuurin meel tegi mayno qofka bini aadmiga nolol buu u baahan yahay waxbarasho buu u baahan yahay caafimaad buu u baahan yahay waxaan leeyahay ganacsatada Somaliland ha la abuuro investment ha la sameeyo oo maalgashi dalka ha la geliyo adduunyada maaha dowladaha hore u maray kuwa shaqada bixiya maaha nidaamkay abuuraan shaqada cidda bixisa waa maalgashayaasha waa dadka ganacsatada ah waxaa laga yaabaa wadannada waaweyn hal kambani inuu ka shaqaalo badan yahay dowladda idilba ganacsatada waxaan ku boorinayaa war waddanka aan dhisno dhaqaalaheena aan dhisno haddaan dhaqaale jirin waxba inoo dhismi maayaan saxaafadda
iyo wasaaradda warfaafinta waxaan leeyahay war barnaamijyaha la soo kordhiyo ummadda wax loogu tilmaamayo oo wax loogu sheegayo oo qabyaaladda lagaga dagaalamayo waan bogaadinaya wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga waxaan leeyahay jasaakumullah khayr waxa weeyaan waa inaynu ummad noqonnaa gacmaha haysata oo iskaashanaysa oo wax isku tilmaantaa dhalinyarada wasaaradda dhalinyarada waxaan ku faraxsanahay maamulka madaxdooda sare wasiirka wasiir ku-xigeenka agaasimaha intuba inay dhalinyaro yihiin ha laydinka faa'iidayso dhalinyaronimada ka faa'iideeya dhalinyarada waddankana ha la xoojiyo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa somalilan in xanuunada qaarkood oo qabyaaladdu igu horrayso oo maandooriyuhu ku xigo oo aynu weliba dhalinyarada waxaan leeyahay mid kale waan ku darayaa qolada saxaafaddan waan leeyahay war miidiyaha dhinaca fiican aan isticmaalno miidiyaha dhinaca fiican aan isticmaalno aan iswaaninno ilaahayna aan ka cabsanno waddankeenna ilaahay waxaan ka baryanaa in wixii khayr layna waafajiyo somalilan ha guulaysato somalilan ha gobarwaaqowdo dhalinyarada somalilan waxaa lay meel kasta joogaanba allah idin dhowro gobonnimo iyo guul dadaala wixii wanaaga yeela wixii xunna iska waaniya idinkaa waddanku idinku tiirsan yahay rajada waddanku waa idinka dhammaantiin mar kale waxaan idin leeyahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته